sidaa wad ogtihiin saaxiibayaal waxaa mar dhow ka bilaabmaya wadanka Jarmalka koobka qaaradda Yurub oo kaliya ka hartay muddo hal maalin ah oo wuxuu bilaabmaya maalinta Jimcaha ee foodan ugu soo heesa 14ka bisha 6 2024 waxaa imaanaya wadanka Jarmalka taageerayaal gaaraya 12 milyan oo ka kala imaanaya 24 kooxood taageerayaashooda oo ka qayb qaadanaya koobkan iyo kuwa kale oo ka imaanaya caalamkaas kale si ay u daawadaan ama ay ugu qayb qaataan xamaasadda ka socota wadanka Jarmalka muddada koobkan oo socda 12 milyan oo taageerayaal ah dawladda Jarmalka waxay u diyaarisay goobo fan zone la dhaho oo barxado oo TV waaweyn la dhigay si ay taageerayaasha si wadajir ah ay ciyaaraha wada daawadaan waxaa jira marka cabsi weyn oo dhanka ammaanka ah oo ay qabaan shacabka iyo dawladda wadanka Jarmalka waxay ka cabsi qabaan muddada oo socda koobkan in weeraro argagixiso ay dhacaan in drones lagu soo weeraro garoomada kubadda cagta iyo goobaha taageerayaasha ay iskugu imaanayaan iyo in dhanka internetka laga soo weeraro si arintaas looga hortago marka wasiiradda arrimaha gudaha wadanka Jarmalka waxa ay soo saartay in gabi ahaanba xuduudaha wadanka Jarmalka oo la leeyahay wadamada kale ee Yurub sida xuduudda Faransiiska, Denmark, Poland, Austria, Switzerland iyo kuwa kaleba la kontrolo ilaa dhaxbartanka bisha 7 2024 meelaha sidoo kale la kontrolayo waxaa ka mid ah diyaaradaha iyo maraakiibta ka imaanaya wadamada kale ee Yurub ama wadamada la isku yiraahdo Shangayga kuwaas oo markii hore baaritaan la'aan iska soo gali jiray wadanka Jarmalka ayaa saaid loo baari doonaa inta oo socdo koobka qaaradda Yurub waxaa sidoo kale la adkeeyay ammaanka garoomada lagu ciyaarayo koobka tusaale ahaan ciyaarta lagu furayo koobka oo Jimcaha ka dhacaysa magaalada Munchen waxaa ilaalin doona ilaa 2000 oo boolis ah ayaa ilaalin doona ciyaaraha Bundesliga caadiga ah markii ay Bayern Munchen oo kale ciyaarayso kale waxaa ilaalin jiray 500 oo boolis kaliya laakiin hadda ilaa 2000 oo boolis ah ayaa ilaalin doona kaliya kama cabsi qabaan weerarada argagixisada iyo wax la mid ah sidoo kale waxaa isdagaali kara taageerayaasha labada kooxood haddii oo midkood carooda guud ahaan ammaanka inta oo socda koobkan waxaa lagala socon doonaa xarunta Sicherheit Centrumka ee ku taala magaalada Neuss oo ay iskugu imaadeen booliska wadanka Jarmalka iyo qabiiro kaleetood kale oo caalamkaas kale ka yimaaday si ay u taageeraan dawladda Jarmalka in ay ka caawiyaan wax walba oo dhibaato ah ee ka dhici kara inta oo socda koobkan qaaradda Yurub oo ka dhacaya wadanka Jarmalka marka ku tasho bishan ilaa iyo bish ku xigto baaritaano tiro badan iyo xayiraad haddii aad baawur wadato kale iyo waxyaabo lamid ah ama arabtina xuduudaha iskugu goysid ku tasho baaritaano tiro badan sidoo kaleetood mar walba jeebka ku wado wasfiskaaga ama baasaboorkaaga si ay baaritaankaaga oo noqdo mid aad u fudud haddii aadan wax dukumenti aadan wadanin waxay kugu noqon kartaa caqabad weyn ah haddii lagugu qabto goobahaas oo ammaankooda saaid loo sugay inta kulanka xiisa badan kulmi doona anigu qaliij ah fi amaan